بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمة الصوماليات وحن بدنكم سلام يا صلاة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان أنا بدنك قصيبين نقطة. رمضان مبارك. إلهي كو صونك يا صلاتك أقبله. الله ينقدركم أنك نار تلقى حرين يا ربي ينقدرك. وحن دنيا aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay Ramadaan tahay aanan rabin kayskan inaan ka hadlo sideedaba disgusting-ka ah ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil Ramadaan waa bishii cibaadada bil buuqa ma aha bil iscaaya ma aha bil isfadeexadeeya ma aha bil iska been sheega ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareega ma aha waa bishii Ilaahay gacmaha la horsanayay ee jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaari doonin anigu taas og inay qaar badan dambaabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo kiiskan ka hadlo magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaama waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaan gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi lahayn waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo sidoo rabbi igu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay Ramadaan tahay halka waxaan soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan Ilaahay sidoo ogyahay inaan u hadlo waan soo manahay waa Ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yiri qofka hore ha ka taageerin waxa laga yaabaa kii ka soo dhiijiyay inuu isna soo dilay kiiskan haddaan idhaahdo had u dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodeyno waa long story aad bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo beenaa jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga haynad kala rogataan ha lagu soo jawaabo hadna intan tiri haddana inta ina iga hayn sidii Alle igu ogyahay side-kayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi sidoo igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta Soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga image-kaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca la wada maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta Ramadaan weeyaan Soomaalida la hortago maxay oo been ka gad Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idin la hor imaado iiga tagin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda Ilaahay laga magan galaba ay kulmaan haddaaban maanta been idin la soo hor fadhiisto oo isiraahdo maanta Soomaali beenka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego oo wiilka islaameed carabkiisa qalloociyo oo waxuuna oranin wuu yiri aan idhaahdana Ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu aragani Ilaahay uu soo rogo carabku hay qalalo haddaan wiilka carabkiisa qalloociyo idinkuna aamiinta igu soo hufaa taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u falxun tahay aad bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko Soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad guruubiye ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex way u kala jabeen qoladaas ma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninka raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii riwaayadiis ay hablayo hadmad guursan doontaan akuuku qaybtiisi markay tusma hadashana tusma runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii way oo saas ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay ka soo bilaabantay ka soo bilow ilaa ay habeen dambe idii halka fadhiyeysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan kaliya ayaan soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan exactly wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay ka soo bilaabo istab idraahdaad maanta aad la wadaagtid igu wallaahi oo bilaahi oo tallahi 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyn ee media dhex araraya ee dadankuna ku dambaabteen kaliyaata inaan inta xoog saaro maanta haday noqoto in laga hadlo oo ilaa ay dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waan filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdo ku soo toosay maaha weligeys maan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday wixii kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sanadood ayay kaawan yihiin everything adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq darraba marka waa inaan taas aamino haddaan isiraahdo staan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan aan u socday sambu yarisan baan erisan waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad waa akhira seegtaan waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationship-ka noqday ayaan doonayaa inaan anigu side-kayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxani ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahay aan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur daljir nin la yidhaahdaa ay soo qaban ilmo u soo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanayn qaadiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay un baan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaaba ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kale unbuu ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay banaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alle meeluu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alle ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unba arrintiisa ogaa kayskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay mar haddaan sideedii aayado quraan soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay hilinay oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kayskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said unsolved kaasuna ku dhamaanaya ilaa de isagu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsano oo naan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin ismaan lahayn this is gonna happen because weligay iyo waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kuma jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynay bahayd guurka taas baan idinku odhanaya
tan la leeyahay way sinaysatay oo way maxayso ilaahay ku gaftayna waan u soo socdaa. muddo sanad iyo waxoogaa ah kow anu waxaan qof cilaaj ah, waxaan qof xanuunsan, waxaan qof qalbiga ka xanuunsan, waxaan qof emotionally iyo physically bajiran. inta dhakhtar daba wareegta sariirtuun saaran uun yuusaysa. sidaan horeyba idinku sheegay ilaahay wuxuu og yahay oo rabbi og yahay keli haataan sheegi kara. waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa. wixii mala awaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa og, anigu ma sheegi karo. waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu og yahay shaydaan in la ii adeegsaday. waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey. waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyey la igala wareegay. waxa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo, haddii aan isleehay kayskan ku adkayso, haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto Soomaali arrinkan qodobkaa ka gad, waxaanan adduunka ilaahay ummadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido. aamiin dhaha. calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo. aamiinta soo dhaha. sheekadan jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo sheekada Cabdi wuxuu ka soo shaqeeyay bay ahayd. isaga ila yimi. he had a plan, laakiin anigu daacad baan ahaa. markii hore oo dhan, bilihii hore oo dhan anigu maan jeclayn. waan la yaabanaaba dee isagaan ka tooxsan jiroon kula yaabana. maalin maalmaha ka mid uu isoo wacay. wuxuu yidhi gurigiisu ka guuray. waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay? wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladayda waxaa soo baxay niman Suudaani oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya. amba ha kula joogo amba ha ka maqnaado. qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan. waxay sameeyaan black magic. madiiday sameeyaan, sixir bay sameeyaan. qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonayso kaaga dhigayaan. oo dabadeetana gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baa nimankooda ku sameeyay. marka waxaan u baqay naftayda. reerkaygaan uga soo baqay. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku idhi. isagaa ii marag. wuxuu ku adkaystay uu iga dhaadhiciyey because of sixir, cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa ugu guuray. aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay Cabdi. bil kama soo wareegin. bil buuxda maalintaas kama soo wareegin. markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan. ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna 100% maan hubin, laakiin waan iska mina awaali jiray. waxay noqotay wax kasta oo Cabdi yiraahdo inaan fuliyo. wax kasta oo yiraahdo samee inaan sameeyo. wax kasta oo yiraahdo keen inaan dhiibo. inaan noqday qof sariirka ururay oo aan xanuunsan oo dhakhtar jooga. ama maxaan ku rahdaa kaniin qaadanayo kaniin ku socda oo maalin walbaba appointment leh. iyadoo ay sidaas tahay uu la og yahay meeshuu igu xiray inankaasi, haddana wuxuu bilaabay inuu masayr
nin iga masiirsan iska kaydhigo halkanaad ka baxday internetkaad xidhatay telefoonkaad xidhay iyo aad la hadlaysay iyo kula hadlayay qofkaad la hadlaysay screenshot iga soo qaad waa ay qofkani ii soo sawir iga soo qaad dagaal iyo buuq aniga waxa igu bilowday cabsi inaan dareemo murug inay geeri igu dhacday oo kale inaan ahaado qof qalbiga ka ooynaya inaan isku ooyo habeen iyo maalin halka ay sartu ka soo qorantay ay masiibaduba ka timi ayaa halkana maalintii dambe wuu soo wacay wuxuu yiri kitaab quraan soo qaado waan ku dhaarinayaa maxaan ku dhaartaa dhaar baad maraysaa waxaan kugu dhaariyo ayaad ku dhaaranaysaa waxaan ku yiri waxaan maqlay meesha lagu dhaarto geed kama soo baxo roobna kuma da'o ma gurigeygaan ku dhex dhaartaa wuxuu yiri dhaartaasi waa ta beenta lagu dhaarto haddaad run ku dhaarato waxba noqon maysid haddaad been ku dhaarato laakiin dee waa dabar go-aysaa waayahay haddaan anu dhaarto oon anigu dub iyo diru kala baxo adiguna aad ila gogo-dida kitaab soo qaadaan dee waanu isla dhaaran anna waan dhaaran soo inaan dhaarto qasab ma aha adiguna soo qaado waayahay buu yidhi kitaab soo qaadana kitaab soo qaad wuxuu yiri kow igu dhaaro inaad jeceshahay laba ku dhaaro meeshan joogo inaad imanayso saddex ku dhaaro inaanad noloshaada nin la hadlay ama saddexdaas baa ahaa waa haystaa ba iisu saddexdaasi saddexdii baan ku dhiftay kitaabkii quraanka baan gacanta saaray isagana intaa in leegaya in ka badan ayuu ku dhaartay sidii baanu isku dhaarsanay waqtigii uu ila ballamay inaan u tago ayaa waxaa bilowday coronavirus quarantine baa adduunkii noqday waxaan ceebsaday inaan iqabin meeshuu joogo inaan tago waan la hadlay waxaan ku yidhi wala waqtigaanu ballanay wuu soo dhow yahay laakiin kuma iman karo oo maxaa dhacay horta number 1 dee isma qabno inagoon isqabinano meel dashaad joogto kuguma imanayo dee waa caadi oo markaa timaado waynu ismehersan number 2 income aan kusoo taraafalo intaas lacag ma haysto dhawaan baan Afrika ka imi dhowr bilood ka hor wax ma haysto number 3 haddii corona halkaa quarantine igaga dhigo caruurtaydii waan ka xidhmayaa ana don't have excuse aan Egypt ugu bad xidhmade habeenkaasi cirka biyo kuma hadhin inankaasi sidoo u xanaaqay abidkiis uma xanaaqin wuxuu yiri ma kitaabkii quraankii baa ku celin waayay ma intaad kitaab quraan iigu dhaaratay ayaad igaga baxday oo in kitaabka quraanka haduu ku hayn celin waayay adduunka maxaa ku celiyaba waxaan ku walaal waqtiga ii bedel waa run waan dhaartay waa inaan ka dhabeeyo laakiin timeka ii bedel ku bedeli maayo hadii bedelayn aniguna ma iman karo daadii ilaahay sayid kale yeelaysan ilaahay waa qafuur raxiim qalbigaygu arkaya inaan imaado kan bilil ma diidin laakiin de corona ba ilaahay ba soo rogay maana isla quarantine ba adduunku noqonay habeenkaas ayuu cabdi go'aankan gaaray inuu cimriga ii soo gaabiyo cimrigayga inuu soo gaabiyo maalintaas uu gaaray go'aankan telefoonkii buu dhigay wuu iga amaqnaa maalin iyo wax habeen kadib ayuu ila soo hadlay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan wada hadalo si serious inaan wada hadalo isu keenkeen waxa dhawaay telefoonkan qabsaday 24/7 markaan hadlayno waxaan ku wada hadli jirnay video call never abdi muu ogolaan jirin inaan call caadi ah ku hadalo video call inaan ku hadalo kow intaan joogo ereedida waxa joogo dhan inaan tuso inaan cidi ila joogin dan markaas u hadli jiray wuxuu yiri waxaan doonayaa waan tagayaa horta kaarkaygana waan iska kansalaya
hargeysaan tegaya meeshan ma doonayo inaan sii joogo laakiin adiga waxaan kaa rabaa 5,000 oo dollar inaad siiso ilaahu sooniya salaad hayga aqbalin haddii aan inankaa qowlkiisa qalloocinayo 5,000 oo dollar inaad gacantayga saarto waxaan tegayaa hargeysa baasaboorka Soomaaliya ayaan qaadanayaa waxaan u sii baxayaa Turkiga waan oran karayay in kamlaan baaba ku jirtay qodobkii hore aan kuma iman karo waxa ku jirtay I don't have money 2,500 oo dollar xageen ka keena saacadan wuxuu soo amaaho waan dhihi karayay amaah meel aan ka waayay iyo ma hayo iyo laakiin I have no power anina ka iskaga difaaco 2,500 wuxuu 2,500 hadda ii soo dir 2,500 markaan hargeysa tagaad ii soo diraysaa waxaan iri waayay 2,500 baan shubay taas waxa dheer 2,500 waxay ahayd lacag aan u baahnayn oo dee uu ku dhoofiyo Turki ku tagay kiradiisa iyo biilkiisuna meel bisaarnayn waxa ka soo wareegtay midha week intii processkiisu socday ayuu haddana ii soo fikiray wuxuu yiri kuma aaminsani sababta oo ah case numberkii hore kow aad ka baxday ee dhaaratay ayaa wuxuu dilay aaminkan ku qabay oo dhan arintan inaad faithful ka tahay ma ogaan karo ilaa aan ismehersano maxaan ku idhaahdaa kuguma aaminayo micnaha inaan nuunusa iskala hadal wuxuu sankaa igaga tolay qasab inaan ismehersano muddaba 3 jeer ayaan maalintii aan ku heshiinay inaan ismehersano ka salon dib uga dhacay haddaanay taasi dhicin ilaahow casiisow casaawo jallow ummadda Soomaaliyeed inta i daawanaysa i taqaanay kayska la socoto wada nool waxay igu arkaan oo masiibo igu soo rog haddii aan inanka ka been sheegayo oo ina taasi dhicin qasab ayay noqotay inaan taana idhaahdo hay laakiin hal shay aan ka codsaday inaanay dadkuna maqlin oonan xataa asxaabta dhow aanan u sheegi karin sidii ba ku dhacday isaga oo intaas soo shay haysta oo dhaartii haysta widaariyay oo meherkii haysta oo lacagtii iga dalbaday haysta haddana inankii wuxuu noqday qof aan istaagin oo qaboobin dacwad uu socoto hadal uu socdo canaan uu socoto dirir uu socoto wuxuu socoto بريجي هراء أردن هندداد يدو واحد أنا كلي يقوم يبلغني هندداد واحد يجا بلغي كون يسدلي أنت نسدله أنت عجلة دوبه أيها واحد مد وشيء إن أندرت هاي سكدلي هذا قلنا أمد واحد كجب بحتاس وواحد نقول قبل يويل كين تي عقابتي أي دبتي يجعلكوا جميستي وننكاس درتي سكدلي أنا قلنا حنون كان ما بقى ذكر أنت قبل أن كان كتيجي inuu isdilo ayuu igaga dhigi jiray bowling aniguna run baan moodi jiray mar alla markuu mar isdilo baan dhigi jiray ilaahay ka cabso waxa seen kan muwaali yahay miyuu xanuunsan yahay armay wax jiraan armay dhaf tahay qof serious oo ilintu ka daay soo xanaaqsan oo qaylinayo oo kule hadda naftiis ka gooy wax alla wuxuu codsado saas baan ku filin jiray sidaan horeba idinku dhaartay idinku habaarkaygii hore dabada haya haddii aan hadal beena oo meesha ku jiro ileen maanta ilaahay un baa ii markhaatiya iyo isaga inta markaan halkaas la joogno cajaladii wuu bedelay inankii wuxuu bilaabay inuu waan istilidan laga gudbo waxaan oo dhan laga gudbo inta yar waa intuu sugayo processkii u socday Soomaaliland maalmaha ka binaas ku dhacnay waan soo baxayo hees yar baan dhageysanayo heestii baan suray Facebook meesha yar story-ga ayaan soo dhigay wuxuu u arkay inaan isaga ku dhaga hadlayo wuxuu yiri
maansuu soo qoray weyn dad inta badan waa dadka facebookiisa shucuurtiisa kusoo qora. maansuu soo qoray wuxuu yidhi dhaga hadalku waa ceeb hadday sharaftu dhelido, haddii aanan dhimanoo karoonuhu i dhinac maro waa inoo dharaar kale, marka aan dhulkii tago inaad dhayican tuugtiyo in dhanaan ku madax maro. screenshot baan ka qaado waanu diray. waxaan ku ihi maxaad igu hanjabaysa? dadka aanan maansooyinka akhrinayn, suugaanta garanayn ee af soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa dee waxaan loogu sarbeebayo waabad hanjabaad cad oo banaanka taaladee. markaad Soomaaliya tagto maxaad igu samayn kartaa? Soomaaliya baad joogtaa. wuu qoslay, halkii baan ku heshiinay maalintaas. dhowr cisho kadib wax yar baa ka dambeeyay, aduu dhowr xoogaa maalmihii baanan dee taariikhdii ilaan maan qoranayn oo ismaan lahayn, akhri baa lagu odhan noloshaadii. ayuu ila soo hadlay, wuxuu igu yidhi nin baa imanaye waxaad iisoo dhiibtaa iPhone 11. telefoonkii baan diray. telefoonkii iPhone 11 markuu Cabdi u tagay, Cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo wax kasta oon ka hadlayno, haddaan xadiisayno, haddaan dad xamanayno, haddaan hees qaadayno, haddaan quraan akhriyayno, haddaan sexual talk ka hadlayno, wax alla waxayna dhex maraya. He was recording me the whole time. waxaa la gaadhay safarkiisii, wuu safray, Hargeysuu tegay. Hargeysa markuu saa uga degay ayaan la hadlay. waxaan ku yidhi ma tagtay Hargeysa? nabad soo maad gaadhin. haddaba waxaad samaysaa, waalid baa kuu jooga, walaal baa kuu jooga, caruur baa kaa horeysa, asxaab baa kaa horeysa, waa magaaladaadooda intaa ka maqnayd. markay Hargeysa ku soo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayilka iyo asxaabta iyo adduunka ka soo boodo haynoo ahaato. waayahay buu yidhi. waxaan ku ihi lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo $1 oo maalintuu dhoofiya aan u diray gacanta ku haystay. waxaan ku ihi intaad $1,000 iyo Hargeysa isla soo gurinayso dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadar garayn maayo. waan iswici jirnay marmar, laakiin telefoonkii video callka ahaa ee 24/7 ahaa ayaa yaraaday. maalintii dambe uu ila soo hadlay, wuxuu yidhi ballan inoo qabaa inuu arrinteena kaga hadalo. waayahay baan idhi, ballantii baan qabtay. bisha 18keedii ayuu ka degay magaalada. bishii ku xigtay 9keedii ayaan ballanta qabsanay. ballantii ay wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh hees wadatay, hees loo soo sameeyay ula tagtay isaga iyo fanaan ina fanaana. heestii bay ka qaadeen gabadhii 1500. ilaahow rabbi oo raxmaanow naarta jaxiimo igu salool, haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaqay gabadhu igu haybay. waan waco, waxaan ku dhooriyaahe anigoo sheekadu ay kaftan iga tahay, ma $1,500 baad gabadheedan hees u sameyn ka qaadatay oo iimaanka baad leedihiin. heestiyadaa wadata kaliya waxay idinka doonaysaa waa codkiiba idinka doonaysaa. sidee u dhacday inaad $1,500 ka qaadaan idinkoon midhana u sameynay? wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaan ku idhahdaa si qaldan buu hadalkii isaga u galay. anagu inankii heesta qaadayna ma lihin, inantii heestana ma nihin, laakiin dee hawadii adoo farahay ka baxday ballantayadii. halkii baan isku dirirnay, demi iyo raax baan isku nidhi. anugu haddaan idhaahdo, haddaan isdirirnaba Cabdi isagun bay caynay, haddaan isku xanaaqnaba isagun baa bilaabay, haddaan anigu malaa'iig meel taalaan ahaa haddaan idhaahdo dee been baan idin sheegay. I was firing back to codad naastu ii soo duubay, anigu codad baan duubay, handadaadun baan antayda ku jirin iyo hanjabaad. maalintaas telefoonkii baan ka qaban waayay Cabdi. way soo wacay waan qaban waayay. wuxuu ii soo qoray qoraal dheer ayuu ii soo qoray. qoraalku wuxuu ku bilaabanayay adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo
wax walba haddii gacanta laga saaro billions of dollars haddii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan laga gadaynin waa sharaf saacada laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshot baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahay tusma la wada